أنواع ذا كالجدسان أو لو حجي أنواع النسك في الحج حجك وحلو حج كرا صدح قاب سيدا فقهاء بأي يرادين حج ليرادو حج الإفراد إي حج ليرادو حج القران إي حج ليرادو حج التمتع حج الإفراد مركا آن ليهي قفكو مركا ميقاتك وتاغيهي أيوحو كل واقيا لبيك اللهم حجا إله وحان كوغو تلبييستي وان كوغو دواقي oo aan niyeystay inaan xaj gudanayo acmaashiisi xajka buu wadanaya ilaa uu dhamaysto oo uu gabagabeeyo qofka marka waxa la oranayaa xaaji ama nooca uu xajinayo waa xaj ama nooca uu xajinayo waa xajul ifraad waxa kale oo noocyada loo xajiyo kamida xajka la yiraahdo qiraanku waxa weeye qofku wuxuu xarmanayaa oo uu xiranaya umro iyo xaj wada jira umro iyo xaj wada jira buu qofkii wuxuu xiranaya nusuk iyo amal waahidana waa ka dhigaya wuxuu oranaya labbayk allahumma umratan fi hajjatin ilaahu waxaan ku niyooday umro xaj la dhaxgeliyay noocaasna waxaynu oranaynaa qiraanku marka waxa uu noqonayaa xaj iyo umro la is dhaxgeliyay nooca saddexaad oo xaajiga u furan in uu xajiyo oo noocyada kala gedisan oo xajka kamida waa almutamatti waana nooca aynu rabno in aynu ka hadalno nooca mutamatti la yiraahdo qofku waa inuu xarmado umradii waa inuu umradii niyoodo miiqaadka markuu marayo في أشهر الحج بله حج أما شوال أما ذي القعدة أما طوانك وغوري ذي القعدة مركاسو قفكو مركو عمرده قطبو حلاله بيا حلاله ير مركاسو دركيسي اسكالب بسانيا وحيابه ديب كيس كمر سانيا لكن مركي قارتو مالك السدادات بشد الحجة يوم التروية مالك سوحو حرمانيا حج وحو أرانيا لبيك اللهم حجا intaasi waa noocyada kala gedisan oo xajka qofku uu xarmanayo inta ka bacdi waxaan rabaa ilaahay horta fadligiisa iyo manadiisa waxa kamida sanadkan hadeer aynu ku jirno oo 1446 xajka ay aadayaan koob iyo 10500 oo xaaji oo Soomaalida ah in dhammaan falaydkoodu uu noqon doono inuu ka baxo aadan cadda airport muqdisho toosna uu ku wajahan yahay madaarka Madina International Madina in uu qofku ku wajahan yahay taas marka waxayna ka saacidaysaa qofkii isagoo aan dharkii cadcada xiran inuu Madina ka digi karo laakiin waxaan ogeysiinaya qofku hadii uu yahay mid xagga iyo Madina u socda waa inuu niyeystaa زيارة مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم إنه قفكاس زيارنا مسجد كنبي محمد وإنه عندك ستاجليا وإلا قفك هدو الصومالي كتجيو ميقات كسوح وهان لها يلمنا وهالكاسو كحيران لها لكن قفك مركن يدي سماها إنه حرمضه لكن يدي سوحويه إنه زيارته مسجد كنبي محمد صلى الله عليه وسلم waxaan kala tarabaa inaan baraarujiyo ziyaarada masjidka nabi maxamed marka la aadayo looma aado nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo la soo ziyaarto oo dad baa waxay moodaan madiina in loo aado nabi maxamed qabrigiisa in la aado ma yawa khalad laakiin markii magaalada madiina aad tagto acmaasha muslimka ay fiican tahay inuu sameeyo baa waxay tahay in uu qofkii la yimaado أعماشي سيدة نبي محمد إنه قبرجي سو زيارته أو كلاته ولذلك وحنا قصة أورورينا زيارة مسجد كنبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك مركي مجال مدينة أوتجو كو مساجد كو حكبل عبيا إنه لقتي سميدك تأجريه إنه إلهي فضلك سوي ديسته إنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقصة ليه سيدة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي هيد waxaan marka masaajidka u aadayna halkii salaad oo lagu tukado waxa ay ka fadli badan tahay 100 salaadood oo lagu tukado meel kale caalamka illa masjidka xurmada leh ee masjidul haram mooyaan
waxaan kaleeto masjidka u aadaynaa nebi maxamed xadiid saxiixa buu ku yidhi xadiid saxiixuu nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi min xadiid cabdullaahi bni cumar laa tushaddu rixaal rar lama adkaysto ama safar lama aado ilaa ilaa 3 masaajid 3 masjid mooyaane masjid alxaraam masjidka maka ku yaala wamasjidi haada masjidkaygan oo kan madiina ku yaala wamasjid alaqsa iyo masjidka falastiin ku yaala ee qudus rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu kaleetoo tilmaamay mar haddii fadli badan ay leedahay salaad lagu tukado masjidka nebi maxamed qofka waxaa ku cayin maysa salaadihiisa oo dhan jamaaco inuu ugu tukado masjidka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam oo masjid aad iyo aad uga fadli badan masjidka waxaa ka sii fadli badan sida xadiid saxiixoo sariixa ay ku soo aroortay masjidka nebi maxamed waxaa ka fadli badan salaada lagu tukado masjidka xaraamka ama masjid alxaram rasuulku wuxuu yidhi salaatun fii masjidi haada khayrun min 1000 salaa fiima siwaahu ila almasjid alxaraam nebi maxamed wuxuu yidhi salaad lagu tukado fii masjidi haada masjidkaygan kan ah khayrun min 1000 salaa waxay ka khayr badan tahay 1000 salaadood fiima siwaahu oo caalamka lagu tukado ila almasjid alxaraam marka laga soo reebo masjidka xurmada leh mooyaan salaad marka lagu tukado masjidka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam 1000 salaadood ayay u dhigantaa oo ka gedisan meelaha kaleeto oo dhan nebi maxamed sala allahu calayh wasalam siduu tilmaamay ilaa masjidka xurmada leh mooyaane masjidka xurmada lehna isaguna waa kasii fadli badan yahay markaa qofku uu yimaado magaaladan magaalada madiina horta acmaal xajna ma yaalaan acmaal cumrana ma yaalaan dadku arrintaa waa inay ogaadaan madiina qofku haddii uusan tegin oo xajkiisii cumro iyo xaj isku guda jira sameeyo xajkiisi waa u taam laakiin sida fadliga badan bay waxay tahay masjidka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam salaadiisa fadliga badan lagu sheegay inaad masjidka aadid laakiin masaajidka la yidhaahdo iyo magaalada madiine la yidhaahdo wax acmaal xaj ah ama wax acmaal cumro ah oo ina ka yaallaan ma jirto intaa waa inay dadku ogaadaan waana muhiim madiine markuu yimaado oo ziyaarada uu kaga bilaabo masjidka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waa koowe waxaa la rabaa inaad soo siyaarato qabrigii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam 3 god oo isu dhoweeye godka koowaad nebi maxamed baa ku jira assalaamu calayka yaa rasuul allah godka labaad assalaamu calaykum yaa abubakar godka saddexaad assalaamu calaykum yaa cumar cabdullaahi bni cumar safarka markuu ka soo noqdo oo uu masjidka soo galo oo uu ziyaaranaya nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu oran jiray assalaamu calayka yaa rasuul allah assalaamu calayka yaa abubakar assalaamu calayka yaa abati 3 waxaa kaleeto magaalada madiine marka la joogo iyaduna muhiima masjid lagu tukado salaad lagu tukado masjidka quba oo waxa weeye masjidkii ugu horreeyay oo nebi maxamed markuu magaaladan madiine yimid rasuulku u dhisay sala allahu calayh wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi alsalaatu fii masjidi quba ka cumra salaad lagu tukado masjidka quba waa sida qof cumraystay oo kale masaajidka haddii ay faradkii kugu qabato aad ku tukato ama maya 2 ragcadood aad ku tukato sida nin cumraystay oo kaleeta baa tahay weliba nebi maxamed sala allahu calayh wasalam masjidka quba maalin kastoo sabtiya ayuu aadi jiray raakiban wamaashiyan isagoo gaadiid fuushan iyo isagoo lugaynaya labadaba maalin kastoo sabtiya masjidkaasi marka fadli buu leeyahay waxa kaleeto ayadana muhiima masjidka iyo beydka ilaahay markii aad joogto haddiiba aad heli karto inaad ku tugto rawdadu waxa weeye intii u dhaxaysay gurigii nebi maxamed iyo mimbarkiisii rasuulkuna wuxuu yidhi maa bayna beytii wa mimbarii rawdatun min riyaadati aljanna inta u dhaxaysa gurigaygii iyo gurigii caaisha iyo inta u dhaxaysa mimbarkaygii mimbarku waa kii uu ka khudbayn jiray waxaa ku jirta rawdatun min riyaadi aljanna beerbeerihii jannada ka mid halkaas marka hadday ku suurtoobayso ayadana inaad ku cibaadaysato salaad ku tukato waxa kaleeto ayadana 4 ah oo la muhiishan ah ziyaaratu maqbarati albaqiic
masjidka nebi maxamed sala allahu calay wasalam dhinaciisa waxaa maqbaradii lagu duugay saxaabo fara badan berigii hore suuq bay ahaan jirtayoo baqiic alqarqad baa la oran jiray markii dambeetana maqbaray isu bedeshayoo qubuurihii dadkii lagu aasi jiray marka saxaabo fara badan baa halkaa ku duugan markaa meeshaa tagto waxaad odhanaysaa assalaamu calaykum ya ahla diyaar antum salafuna wanaxnu bilathar wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun yakfir allahu lana walakum aadaabtii siyaarada diinteenna islaamka 6 waxa kaleeto qodob muhiima iyadana ah magaalada madiina haddii aad dhex joogto siyaaratu shuhadaa uxud buurta uxud iyo dadkii shuhadada ee maalintii lagu dilay ghaswadii uxud ilaa iyo 70 qof gaaraya qubuurahoodiina halka ay ku jiraan inaad iyagana soo salaanto السلام عليكم يا أهل الديار أنتم سلفنا ونحن بالأثر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تدبا وحكلات أيضنا مهمة زيارة مسجد ذي القبلتين مسجد كي مركي لسودجي آيدي قد نرى تقلب وجهك في السماء إلهي سبحانه وتعالى أيدتك مسلمين iyagoo qiblo u jeeda qiblo kaleeta ay u jeedsadeen oo loo bixiyo masjidu dil qiblatayn isagana inaad soo ziyaarato oo aad soo salaanto intaas waxaan ku gabagabaynay muqaddimana uga dhignay xaajiga mutamatica haddii uu rabo in uu soo xajiyo sanadkan laakiin si yaroo kooban oo duuduub ah siyar oo kooban oo duuduub ah xaajigu acmaasha laga rabo hadduu mutamatic yahay waxa weeye 13 qodob 13 qodob oo xaajiga laga rabo duuduub xajkiisa oo dhan koow miiqaadka markii aad joogto waa al-ihraamu min al-miiqaat miiqaadka qofku markuu joogo inuu soo xarmado meel kastay ku qabataba labo maka markuu yimaado waa inuu ka bilaabaa cumradiisii kacbada uu ku soo wareego 7 goor dabcan waxaa la socota inuu qofkaasi 2 ragcadood oo ragcatay dawaaf la yiraahdo uu tukado biyihii zamzam ka cabo 3 waxaa qodob kaleeta ah as-sa'yu bayna safa wal marwa inuu qofku u kala socdo inta u dhaxaysa safa iyo marwa 7 goor buu iyadana kala dhex ordiyaa 4 waxa kaleeto uu sameeynaya qofku cumradiisa xalqu raasi aw taqsiiri madaxiisa buu xiiraya ama waa gaabsanaya intaasi waa inta muhiimka waa qofku markuu rabo cumradiisa inuu guto qofkan aynu ka hadlayno waa qof mutamatica wuxuu sameeynaya cumro iyo xaj marka cumradiisi halkaasay ku ekaanaysaa qofkaasi xalaalow yar buu xalaaloobaya dharkii tolnaa baa loo ogolaanayaa waxaa loo ogolaanayaa diibkii waxaa loo ogolaanayaa waxyaabo badan timihii inuu qaado waxaa loo ogolaanayaa cidiyihii inuu jaro wamaa ilaa daalika waxyaabaha aynu ku soo sheegnay muxaramaat ulxaj maalinka ay gaarto maalinka 8aad ee bisha dilxaja yowmu tarwiya waa qodobka 5aad oo xaajiga mutamatica looga baahan yahay maalinka 8aad oo bisha dilxaja maalintaas wuxuu oranayaa labbayk allahumma xajjan maalintaas mina ayuu degaya qodobka 6aad waxa weeye wuquufu bi'arafa arafa inuu istaago maalinka 9aad subaxdeeda hore buu mina ka baxaya wuxuu tagayaa arafa maalinkaas oo dhan arafuu taagnaanaya habeenkii markii ay qorraxdu sii dhacayso ayuu ka soo baxaya qodobka 7aad oo looga baahan yahay mutamatica waxa weeye mabiitu bimusdalifa in uu musdalifa qofkaasi ku bariyo habeenka 10aad oo bisha dilxaja qodobka 8aad oo qofka laga rabaa waxa weeye maalinka 10aad oo bisha dilxaja qofkaasi inuu gamto jamrada la yiraahdo aqabat al-kubra 3 jamro oo la tuurto waa tan maka iyo beydka ilaahay ugu xigta oo ugu shishaysa barkaa mina joogto 9 qodobka 9aad oo qofka mutamatica laga rabaa waxa weeye xalqu raasi madaxiisii in uu xiiro sidoo kaleeto qodobka 10aad oo laga rabo isla maalinka 10aad ee bisha dilxaja waxa weeye dabxul hadi
hadigii uu waday qofkaasi inuu qowraco khaasatan haddii uu mutamatic yahay 11 waxaa laga rabaa isla maalinta tobnaad ee bisha dilxaja dawaaful kacba kacbadii inuu soo dawaafo 7 goor dawaafkaasi waa dawaafka la yiraahdo dawaaful wadaac qodobka 12aad waxa weeye maalmaha 11 iyo 12 iyo 13 ramyul jimaar in uu gamto jamaraadki wuxuuna bilaabanayaa bacda duhur ramyul jamratil aqaba maalinkii tobnaad ee bisha dilxaja salaadii markuu ku soo tukaday musdalifa oo uu ka soo baxay subaxa horeba waa tuuranaya laakiin saddexdan maalmood 11 12 13 jimaarka ama jamaraadka wuxuu tuuranayaa bacda duhur waxa ugu dameeya acmaasha qofka mutamatica ama xaajigu uu sameeyay marka aad rabto wadankaagii inaad aado ama aad rabto inaad ku noqoto Madiina oo kale ama aad rabto Sacuudiga meelo gudaheeda kamida inaad u safarto maka inaadan ka tagin ilaa adigoo dawaafo mooyaan dawaafkaas baa ku gabagabaynaysaa safarkaaga dawaafkaasna waxa la dawaaful wadaac halka markii ay noqoto qofku wuxuu ku soo jiraa diyaaradii uu soo raaci lahaa Soomaaliya yimid wa tamma hajjuhu hajkiisina saasuu ku taam noqday wallahu a'lam